بسم الله الرحمن الرحيم. qaybtii ka horeysay waxaan faahfaahiyey sida ay Soomaalida uga dagaalantay magacaaba oo cajiibka ah, laakiin waxaa isweydiin leh ma dadkiinan hadeertaan dibadda aaday ayaa dhaqankan la yimid oo cajiibka ah oo fiican oo la mahdiyey oo annagana kornoo qaado sharaf noo yeelay, mise waa wax soo jireyna oo aan ugu bahan. aan isla fiirino marka wax soo jireyna inay yihiin iyo wax ugu bah in aad qabateen. qaybtii ka horeysay qof dhageystay oo si fiican u dhuuxay baa teleefon ii soo diray, qof igu weyn la yiraahdo maana abba Shariif Xasan. marka wax cajiib ay tiri oo yaab leh, waxay tiri ku dhaqsay tiri, waxay ka baqday midna inaan la daaho qaybta labaad iyo qaybta saddexaad. ku dhaqsay tiri intaadan dhiman bay tiri. marka ku dhaqsay intaadan dhiman labadaba waa u qaatay. waxaan is-iri dareen baa galay oo aad bay ula dhacday waa qoftaas. marka intaadan dhiman inay ula jeedo waad weyn tahay iyo intaadan dhiman intaanan lagu dilin inay ula jeedaan kala garan waay. waa ku mahadsan tahay kulleyba sida ii dhiirigelisay, aad baan ugu mahadinaya. aan ku noqdo marka hadalkaygii oo ahaa arrinta laydinku arkay ma soo jireenba mise waa ugu okay. sheekadeenii ugu dambeysay waxaa ku jirtay Masar iyo annaga sida aan ugu hiilinay u caawinay, ilaa heerka aan ugu hiilinayna waa idin sheeg. aan ka sheekeeyo xiriirka Masar iyo Soomaaliya, inta halka goorta uu dhashay, sida uu ku dhashay iyo heerka uu gaaray. wuxuu dhashay markii talyaaniga, dowladda talyaaniga lagu kalifay, waa lagu kalifay, ma aha in ay iyada doonaysay, lagu kalifay in ay 10 sano oo wisaayada Soomaaliya ay wax ku barto si ayna gaarsiiso in ay dowladnimada hanan karto. 3 nin bayuunka soo magacaawday oo uu ku jiro Kamaaludiin Saalax, Masri ah. Kamaaludiin Saalax baabuur buu soo qaatay, dalka Soomaaliya ayuu ku soo wareegay. sida ninkii Bakistaanka ahaa ayuu yiri waa la idinkiin soo diray, la yaabay saad u dhaqmaysaan buu la yaabay Soomaaliya waxa uu ku arkay. ma aha waa la yaabay kaliya, wax si weyn buu isu bedelay. muxuu arkay? wuxuu arkay tuuladu ku hakado uu soo maraba waxa ku yaal dugsi quraan. dugsi quraankii buu tagay, wuxuu ku arkay dad loox wax ku dhiganaya, ardayda uu wax barayo mid ilka dhacsaday iyo waxay u dhaxeeyaan mid ay xaadda markaas ku soo 14 jir ilaa 7 jir bay u dhaxeeyaan. ninka macallinka 14 jir ilaa 17 jir isla hal macallin baa quraanka baraya. wuxuu arkay in loo yeerinayo ay dhigan karaan. waxay ku dhiganayaan waa loox, qalin ku dhigan maayaan, qori ay qorteen bay ku dhiganayaan. khad waxa uu ah aanqaas ay riiqdeen. macallinka dugsiga 30 juz buu hal jeer yeerinaya oo la dhiganaya. kan dhammayn rabo juska ugu dambeeya ku jira iyo juska koowaad waa wada qoranaya. wuxuu la yaabay aqoonta ay leeyihiin, wuxuu la yaabay ihtimaamka caruur banaanka joogta male ilaa inay dugsiga ku jirto mooyee.
wuxuu la yaabay xiriirka annaga iyo diinta islaamka naga dhexaysa wuxuu la yaabay aqoon la'aanteenna carabiga iyo aqoonteena diinta lagu fasiray af Soomaaliga oo sideeda lagu soo celin karo waa uu socday wuxuu la yaabay haddana martigelinta oo marnaba aan lagaba ogolaan meel uu istaagay oo uu kharash baxshay wuxuu la yaabay waa nin dalal badan maray buu ahaa waa nin aqoon leh buu ahaa waa nin UN-ka u shaqeeyo oo gaaray manduub buu ahaa waa nin mutacallima buu ahaa wuxuu tegay masaajidada waaweyn magaalooyinka markuu yimaado tuulooyinka waaba soo arkay wuxuu arkay ayadoo tafsiir qur'aan lagu haayo ayadoo lagu haayo shariicada ayadoo lagu haayo oo af Soomaali lagu hadlayo wuxuu la yaabay aqoonta diinta waxa qurahooba dalkaba ka socdo lagaba bartaba min daraf ila dacal waa diinta islaamka aad bay arrintaasi ninkaasi dareen weyn u gulisay dalka markuu ku soo noqday Muqdisho waa uu duulay wuxuu aaday Masar midda labaad Masar inqilaabka wuxuu ka dhacay konton iyo inqilaab fawrada konton iyo labadii ogaada talyaaniga meeshii laga rabay kontonkii inuu yimaado hal sano dib uga dhacay konton iyo labadii buu yimid xorriyaddana 6 bilood buu soo hormariyey muddada wax la baraayay waxay ahayd 8 bilood iyo 8 sano iyo 6 bilood Kamaluddin Saalax hadduu nin Bakistaani ay yiri waa la idinka soo diray jimco ma tukan jirin saa idin qiimeeyay si kale idin arkay Kamaluddin Saalax dalka Masar markuu tagay qof waalan buu u tagay qof waalan asagoo abu tagay wuxuu ka daadijiyay dadka islaamnimo meelan Soomaali ahayn ma jirto islaamnimo meelan Soomaali ahayn ma jirto waxaan ku dadaalaynaa raboorka uu siiyay dawladda Masar oo qoran baa la heli karaa waa la dooni karaa sida uu u dhigay waa arinta uu dhacsi waana ka cilmi badnaa Jamaal Abdinaasir iyo Najiib iyo Saadaad iyo waa ka cilmi badnaa waa dhalinyaro ahaayeen waaba taqaanaan Jamaal Abdinaasir wuxuu ku dhintay konton iyo kow sano ku dhintay 18 sano asagoo oo Masar u tabiya marka waa ka cilmi badnaa taariikhiyan mansab weyn waa gaaray waa u dhacsiyay ma maleynaysaan hadduu Masar ka daadijiyay talyaani xilkiisa gudan maayeen kaalinta talyaani waa inay Masar gashaa Masar waxay isu xilqaantay ninka waxa uu nagu arkay iyo waxa uu naga sheegay iyo warbixintu naga baxshay Masar kaalintii waxay gashay talyaaniga oo ayaga isu xilsaaray oo hadda arqaan baan sheegaya lambar baan sheegaya dugsi sare 61 dugsi sare 4 baa ka baxday talyaaniga ardada talyaaniga wax baran 4 dugsi sare oo carabi ah waxa ka baxday xamar waxa ka baxday 4 Masarna waxa ka baxday 4 17 baa dugsi sare ka baxday 61 maxaa jira isla markiiba 54 waxay qaadeen arday qaadeen dibadda u qaadeen ardayna dibadda u qaadeen iskoolaadkii oo dhan halkan waa dhiseen idan ninkaasi maadaam xilkaas ay qaadeen talyaanina uu damacsanaa in uu yiraahdo waxba ma baran karaan iyo ma hanan karaan dawladnimo ninkii UN-ka 6 bilood bas raboorka bixinayay baaba xilkaaba laba wareegay meel laga oran karo ma jirto dadkan xilka ma qaadi karaan iyo wax ma baran guud maxaa dhacay waxa dhacay talyaanigii inay la tartamaan masaaridii ay tartan noqoto
waana wax noo fiican. Kamaaludiin waxa uu soo arkay iyo waxa uu noo qabtay waa wax aad iyo aad u weyn lidaraja uu gaaray ay gaareen gaalada in ay ku dilaan xamar shahru ramadaan bil ramadaan inay ku dilaan oo waa 56 bil ramadaan asagoo ka furay iskool magaalooyin fara badan oo Soomaaliya waa ninka qura waa ninkaasi 13 leegada iyo asaga hadii la isbarbar dhigo aniga qiyaastiida waa qaldi karaa asaga ka wasni weyn xurriyadda aan qaadanay iyo waxbarashada aan helay nin waxaa jooga halkan oo wasiira waxaan ka codsanayaa oon hortiina ugu codsanayaa inuu taariikhda Kamaaludiin Saalax jaamacadda ardada muxaadaro ugu qabto waxaa la yiraahdaa Mukhtaar Jeyte waana uu joogaa waxaan ka waa nin aad iyo aad aniga iga badsha sheekada qisada Kamaaludiin Saalax Batrucci ninkan ka sheekeeyay oo soo eegay 50-60 ma dhaliil baa jirta soo eegay wuxuu yiri dhaliil ma jirto inayn dhaliil jirin inaan aqoon la'aan ayan dhicin Masar baa sameysay mana uusan ku dhigin buugiisa waxaad moodaa marka noocan ma dadka hadday saan noo arkaan nagu farxayaan waxaan malayn karaa inaan kaalin intaan muuqata ka weyn in aan gelin karno in aan diinta u adeegno islaamka waxaan rabaa inaan arrin naga gaara tala soo jeediyo oo aan soo jeediyo maadaam aan tartanka qur-aanka xafdiga qur-aanka aan ka sheeganahay dowladaha kale oo mararka qaarkood aad moodidba inayna jilaafaan aad moodid talaan soo jeedin lahaa waxaan oran lahaa tartanka qur-aanka xilkiisa in aan la wareegno oo maxaa jira yaa ilmaheennaan daafacanayna ilmaheenna hadda waxaad moodaa in lagu jiheeyey balooni ilmaheenna maxaa balooni maxaa loogu jiheynayaa kubad maxaa loogu jiheynayaa kubaddu wax weyn bay dunida ka tahay abaalmarin waalica bay qaataan dadka kubadda marka la abaalmarinayo si fiican u ciyaara Messi iyo Maradona iyo waxa ay qaadan jireen wax aqliga galay ma annagana waxaan rabnaa in aan xaafidul quraanka abaalmarintiisa oo bilaa micnaha ah aan kor u qaadno haddaan Soomaali nahay 56 dowladood sida ay noogu dayato taladaas baa soo jeedin lahaa oo aan tartanka soo socda ramadaanka soo socda in aan lacagtiisa hadda aruurino wax ay tahay male annaga Soomaali haddaan nahay waxaan loo soo dhiibaa sanadkii 1 bilyan iyo kazaa'id 5 milyan in aan u quro iyo wax la mida inaan soo jeedino oo aan annaga tilmaano magaalada markaas lagu qabanayo dalkeena duu sidaan yahay waayahan oo aan bareemiyada gaarsiino si qof walba uu u jeclaysto tartanka oo aan wali siino koowaad iyo labaad iyo saddexaad koowaad 2 milyan labaad milyan iyo bar saddexaad milyan ilaa iyo 10 abaalmarin la siiyo ilaa dhiirigelin la siiyo marka Soomaalida waxaan leeyahay waxaan idinka codsanayaa in aad arrintaas ilaahay baan idinku dhaarshay hadday dad yarna barteen dowladaha 56 dowladood oo islaamka ah hanna bartaane arrintan aan u istaagno waxba naguma aha waana karnaa cid kale ka suurtoobaysana ma jirto good waxaan qabnaa leenahay mashaayikh aan caadi ahayn oo marka ay ku khudbadaynayaan dhagahaada kaliya ma aha wax qalbigaada gaari kara inay taabtaan mashaayikhdaas Mustafa baa kamida waxa kamida Maxamuud Dirid baa kamida in ay arrintan si gaar ah oo gaara ugu istaagaan sanadka soo socda si aan isu baranno 56 dowladood oo
aan si fiican loo aqoon Soomaali waxaan ka codsanayaa codsigaygaas in ay iga ajiibaan codsigayga in iga ajiibaan aan aado mowduucii aan u socday caaqibo xumada ay leedahay dawlad la'aanta inaan ka hadlo iyo waxa ay na gaarsiisay iyo sidaan uga kabannay iyo sida la rabo in loogu cesho kelmaddaasaan rabaa inaan ka gaaro caaqibo xumada dawlad la'aanta ay leedahay waxay ku dhaxal siinaysaa dagaal sokeeye dagaalka sokeeye ee ka qarxay tooyashada sare heebta sare dagaalka sokeeye ka qarxay tooyashada sare ee ku dhammaaday gunta oo reer waliba ugu tegay heebta hoose ma noqon mid reeba mahadho iskiisaba dagaal sokeeye imisu socdaa dagaal sokeeye wuxuu socdaa inta la moog yahay waxa la isu yahay wuxuu istaagaa markay geerida ku tusto waxa la isu yahay aan iraahdo haddii aan ilaashan weynay waxa aan wadanahay Soomaaliland wadanahay oo aan isku dilay waxa aan kala nahay beelaan kala nahay yaana kala celiyay yaana dhaxgalay gartaas goormaa la galay waxaana kala celiyay waxa aan isu nahay iskeedaba dagaal sokeeye wuxuu socdaa inta geerida markay ku tusto waxa la isu yahay dagaalka sokeeye waa khasab inuu istaago dagaalka sokeeye Soomaaliya wuxuu ka socday laa ka badan ma socon 8 bilood inta kale wuxuu ahaa dagaal jabhadeed iyo dagaal quruna ee aan ahayn dagaal qabiil ma ahayn waxaan rabaa marka inaan ku daro waxaad ka garanaysaa in laga shalaayay laba shay baad ka garanaysaa in laga shalaayay qof kasta oo sheekeeya wuxuu ka sheekeeyaa in uu dad badbaadiyay qof kasta oo ka sheekeeya dagaalkii sokeeye wuxuu ka badbaadiyaa wuxuu ka hadlaa inuu dad badbaadiyay ninna ma muujin ma sheegan anaa geesi ahaa maxaa jira wax laga sheexayn ku noqotay xataa lama soo hadal qaadi karo shalayga laga shalay guud marka in laga caafimaaday gaalada ma oga waxay naga daba wadaan 24 saac maalin wadnin siyaasiga wuxuu yiri wadib heshiisiinta naga daba wado maxay tahay 24 saac waxay naga daba wadaan dib heshiisiin annaga dib heshiisiin annaga waa heshiinay boqolkiiba boqol baan heshiinay waana ka shalaayay wixii kala gaaray dhaqan ahaan baan u heshiinay ee dib heshiisiintan aad naga daba wadaan ma waxaad u dan leedihiin dib u xasuusin wixii kala dhex maray ma taasad dan leedihiin haddii se dib heshiisiin loo baahan yahay annaga waa heshiinay yaa goormaan ka heshiinay Mareykan waxa uu na yeelay 10,252 qof buu dilay caruur buu dilay dumar buu dilay birmagayduu dilay 72 oday buu dilay yaa ka heshiiyey hadda ka bacdi markaad soo hadal qaadan dib u heshiisiin waxaan leenahay tan ka hormariya aad nagu dhigteen hadda marka aan u qalin qaato dib u heshiisiin iskeeda Soomaaliya markii ay qaraxday afar iyo toban dib u heshiisiin bay beesha caalamka noo qabatay 14 sideedii sagaalkii biloodba dib u heshiisiin oo aan lagu heshiin muddo meeqa 10 sano 10 sano dib u heshiisiin joogta 9 bilood 8 bilood taqriiban baynu suginaysa lagu heshiiyo maxaa jira qaabka waxa isu yeestaa warloro dagaal ogayaal jabhado nuxurka waxa tiraahdaa wixii aan ku heshiin karin ku heshiiya wardadkii inta dawlad yiri waa ku soo qaadeenaa aan xataa isu kaashan say ugu heshiin karaan dawlad qaybsigeeda
guud qaabkan markaas ugu jiray nuxurka waxay ku heshiin karin natiijada fashal isla kiiba lagu celin jiray isla kiiba lagu celin jiray 14 heshiis dib u heshiisiin yaa la wareegay waxaa la wareegtay Jabuuti waxay bedeshay saddexdii qaabkii bay bedeshay ummadda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ayay wacday isin mutacallin ganacsato dhalinyaro dumar qaybaha heedo kala duwan bay wacday hal nin oo jabhada kama qayb gali waa qaabka nuxurka ahdi bay dhigteen noocan ma dastuur bay dhigteen noocan ma wax lagu heshiiyey si magaranaysaa wax loo dhistay dhigteen dastuur la raacay dhigteen nidaam la raacay dhigteen qaabka waa bedeleen Jabuuti qaabka waa bedeshay nuxurka waa bedeshay natiijadii fashilka ahaan jiray 14ka jeer natiijada waa isbedeshay guul baa la gaaray waa la heshiiyey dawlad baa lagu dhisay mawduucan baan rabaa in aan xoogaa yar ku hakado intaas yaanan ku ekeen Soomaalida Ingiriiska barifaanayo wuxuu yiri calanka Ingiriiska qorraxda kama dhacdo Soomaali xaalkeedana wuxuu noqday qaxootiga Soomaalida qorraxda kama dhacdo shanta qaaradoodba waa joogaan wuxuu adeegsaday maqal muuqaal dayax gacmeed lagu tuuraayo meel walbaba laga fiirsanayo shirka oo laga socdo wuxuu adeegsaday suugaanta waxa la isu keenay sidoo nin ii sheegay arrinta gacanta ku hayay 70 fanaaniin gabya يعني 70 مسكني او سوغانتا يا ادو فيعن waxaas garab socday marka khudbadihii iyo suugaantii oo meel walba laga eegto hadalkaas ma aan fasiri karo si fiican laakiin waxaan u adeegsanayaa tusaale yar in aan idin kaga sheekeeyo عمر بن الخطاب مركي أمير المؤمنين النقضي ومركي فتوحات كاللي جاري بلال النبي مركو حجابتي كذب ما أدمن محاجرة وحنا هنجري مؤذن الرسول مؤذن الرسول مردم وحنا يا قياستي سنضه طبعا كبدين بلغ يابو باوسن أدمين عمر بن الخطاب وحو كعصري بلال وحو يري سيدي بلال مر نؤدم وكعصر بلال واقبلين واقرين أدن كيبو قاضي جبار الديسيبو قاضي عدكي سيبو قاضي ما حد عين أذنكي مركو كسو دقي بوحو يمد عمر بن الخطاب أو مقام بو يمد وسود الاستاقي وحو يريس يا أمير المؤمنين وأبراروي وحو يري انتي آد الدمي سيبو يري ومقنا واتقي وقوري النبي قال لفدي صلوات الله عليه حمزة لفدي هبل بان لفدي أصحابتي بان لفدي واد سيبيو واد الرتيبي كلمة سايقة فلان إن أنك شاكيو إن أنك شاكو شركاسي يسوغان تلا أذيك سدي وحا أي بدلين شنطة قاردو ضدك جوغا دارين كودو اسبدل برسمات كي بالون نقضي صومالي نمدي بالون نقضي وحان إهن بالون نقضي wuxuu ku khatibay oo cajiibka khudbad uu ku ooyay asoo khudbadda ummadda la hadlayo ma uusan ogeyn inuu ooyay
shirkii waa guulaystay madaxweynaha la doortay UN-ka horay uma uusan tegin madaxweyne wuxuu markaas muddo gaaban buu ahaa horay uma uusan tegin UN-ku tagay kursigiisa kuma fadhiisan wuxuu ku hubsaday madaxweynihii la doortay kursiga UN-ka ee 10 sano bannaana inuu ku fadhiisto kadib fadhiistay waxa cajiiba cabdiqaasim markii uu carta soo aadayay 4 qof baa soo sagootisay 4 marka uu soo madaxweynaha xamar ku noqday waxaa soo dhaweeyay oo soo bannaan baxay oo aan la soo khasbin qof alla qofkii istaag socon kara labada lugood israacsiin kara 1 milyan iyo ka badan baa soo dhaweysay maxaa jira dadka soo dhaweeyay waxay ahaayeen dad qulubtoodu ay weli ka qoyan tahay ilmadii Ismaaciil Cumar Gelle 1.2 milyan ka badan waxaa cajiiba Rajab Tayyip Erdogan oo inqilaab lagu sameeyay oo taangiyaal iyo diyaarado khatar ah loo isticmaalay dadkii ka hor yimid waxay ahaayeen 800,000 baa taangiyaal hor istaagto tiri stop ma jiro inqilaabkan oo diyaar u lahaa inay dhintaan inqilaabkiisaas ku fashilmay Ismaaciil cabdiqaasim milyan iyo ka badan xamar la galay ciidda dhaqaaqday maciyaalka maxmuud dekada jooga iyo aeroboortka jooga iyo madaxtooyo miyuusan ku jiiri karin waxa isweydiin leh marka muddo gaaban kadib waxa isweydiin leh qolubtii qoyaneed yaa qalajiyay cabdiqaasim baan u haystay aniga oo u ciil qabay ha ay cafiyo qolubtii qoyaneed qalajiyay beesha caalamka qalajisay oo nagu soo celisay meeshuu Ismaaciil naga raray beesha caalamka u soo qaadanaya oo dhacdo kale ah oo tii ka dhacday carto kale ah Singapore waa taqaanaa dhulku intuu leeyahay waa taqaanaa waxaa madax prime minister u noqday Lee Kuan dhibaato kala kulmay maamulka dalkiisa dhibaato kala kulmay baarlamaanku khudbad u istaagay waxaan jeclahay 1964 waad raadin kartaan oo sidii hore ma aha adduunyada qofka wuxuu sheego waa laga dabatay karaa waa ogaan karaa raadsha waa uu ku ooyay dadkiisu ku ooyay baarlamaanku ku ooyay ilmadii ka baxday Lee Kuan Singapore dadkiisa ilaa iyo maantay ka qoyan tahay tan maxaa qalajiyay tan annaga suugaanta Soomaalida been ma hada horay loo yiri annaga suugaanta waxaan ku sheegnaa dareenkeenaan ku sheegnaa waxa suugaanta lagu sheego khudbadaha lagu sheego waxa suugaanta ay karto khudbadaha ma karaan siyaasiyiinteena kama maqleyno waligeedna ka maqlimeeno dana ay leeyihiin awgeed waxa ay suugaanta ku sheegaan ila dhageysta suugaanta bal ila dhageysta oo noo sheegaysa beesha caalamka maxay tahay ila dhageysta It's
banaaye beri hore na soo maray kuwii buugta laga qoray beesha caalamka weeyaan umaystii banaaye beri hore na soo maray kuwii buugta laga qoray beesha caalamka weeyaan kuwii badnaga mida Ethiopia ku biirsho NFD-na bixiyo Jabuutina bannaan dhigay kuwii badnaga mida Ethiopia ku biirsho NFD-na bixiyo Jabuutina bannaan dhigay Hortaan isbarane beesha caalam waa tuma ballan idin su'aale bawadaag miyaan nahay waxyaable maaha marka ma subin karaan beesha caalamka kuwa lagu sheego shir dambe oo jabhadeed waxay mareen wadadii cartay mareen oo ay wax badan ka bedeleen oo ay dawlad aan heshiis ahayn ku dhiseen qaabku waa qaabkii nuxurku waa u dhaweeyeen natiijadu dhulkay dhigeen xataa dawladdii meelay tagto 8 bilood Nairobi 9 bilood Jowhar 9 bilood Luuq Dabo يعني waxay subiyeen dawlad ay ayaga gacantooda ku subiyeen oo socon weeyday inkastoo la dadaalay gud hadda waxay la wareegeen dawlad fadhida oo aan meel la gaari karin oo lagu mashquuliyo dib u heshiisiin iyo dhismo iyo dastuurka gooni baan uga sheekeynaynaa waa waxa ugu khatarsan waa waxa ugu liita gooni baan uga sheekeynaynaa markii aniga haddaad moodaysaan inaan biaylod ahaa xataa sharciga waa bartay haddaan marka waxaan u guurayaa Soomaaliya taladeenna markay tahay iyo tala ajnabiya markay tahay difference-ka u dhaxeeya hadda waxaan idin dareensiiyey Soomaali heshiisay waa laga qaado waxaa loo bedelay hadda 5 baan maraynaa 5 dawladood baan maraynaa oo fadhiida waxaan soo qaadanaynaa tala Soomaaliyeed meesha ay jirto iyo natiijada ka dhalata tala Soomaaliyeed meel ay jirto iyo natiijada ka dhalata umalayn maayo Afrika meelayan awoodda sharciga ayan xoog lahayn oo doorasho lagu qabtay oo doorashada lagu qabtay ay noqotay mid cajiiba oo xalaala oo one man one qof iyo cod ku salaysan axzaab xadidan umalayn maayo in ay ku taal Afrika Jabuuti oo kale sax waa Soomaali waa tala Soomaaliyeed baa taal maxaa jira yaa dhisay tala Soomaaliyeed oo qofkeeba u istaagay arrintaas taas ka sii cajiibsan waxa uu istaagay qof aqoon siyaasadeedna leh khibrad dawladeedna leh baa u istaagay si gaar ah oo gooni ah baan arrintaas uga sheekeyn doonaa ma suurtoobaysa marka inayan isu ekeen ma suurtoobaysa inayan isu ekeen Soomaalida qeybaheeda shanta ah isuma eka ma suurtoobayso aniga si detail ah tafaasiil ah furfuran dhammaystiran idinkuguma sheegayo waxaan la tegayaa
jaamacadaha ardayda jaamaciyiinta oo aan siyaasadda Soomaaliya ka socota saameynba aan ku lahayn ta'siir aan ku lahayn meelna ayaan ka muuqan dadka mustaqbalkooda lagu cayaarayna waa dadkaas waxaan ka bartay kullu jiitay الله يرحمه محمد إبراهيم عقال هذا الأوجري وعوجري BBC لقى سيداي وعوجري ما قعود يا منصب كذا مش يجين 6 وشيء وأطاعي وعوجري أفورقع من السنوي وما إذن أبا الجدين صومالي waxay idin qabatay Soomaali waa jiifta Soomaali wuxuu soo warjira markii ay hurdada ka kacdo Soomaali Maxamed Ibrahim Ciyaal Allah yarxamu waxbuu noo sheegay waxa aan noo sheegay waxaan in aan marka hadii kuwa dibadda jira ay magacaaba ka dagaalameen guriga ba waxba dagaal weyn uma galeyno hurdada inaan ka toosno kaliya lagu filan sidoo Maxamed ibn Ciise waa khabiirka Soomaaliya oo cid ka badisa usan jirin oo si gaar ah aan uga hadli doono Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan rabaa marka intaan arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland aan gediga u ahay aanan ka sheekeen laba kelmadood inaan ka hormariyo waxaan rabaa inaan idin sheego horta kelmadda Soomaaliya iyo Somaliland waxay tahay fiir waa luqad wax kale maaha Switzerland aflaani markii lagu sheego waa Switzerland haddaad af Ingiriis dabcad lagu sheegtid waa Switzerland laanku Ingiriiska dabada ka gasha wadanku sheegay Switzerland talana sheega talana ku magaca Switzerland وإنجليز مرة قلت ما قالوا أصلا هالكي لغات دان يكون كلا دوين وامد تنلبات وعجيب كا سومالي رقم بيلده ما أنت هدي وإلقى كاجو وهذا مركو بريو جني بيكلين لك تصدق وحكي جارن كاجحن لقي بيكلين وحي أكان بيكو شيئا waxay akan ugu sheegay Somaliland waxa lagu arkay baan ku sheegi lahayn haddaan Soomaali nahay oo waxaan oran lahayn wanaag isu taag baan oran lahayn gooni isu taaga dad ba afka noo gashay magacyada sidaan u saaro u qorino ma aha sidaas tani ma ku waxaan kaloo ka digayaa mar labaad in dadka Soomaalida oo hadlaya afkooda inay hagaajistaan marka ay leeyihiin ma go'i kartaan markay leeyihiin waxa ka qurxoon oo sax ah oo shacbiga u qabaa nagama go'daan buu qabaa shacbiga idinkana waxaad sheegtaan ma go'i kartaan maxaa jira beesha caalamka idin soo sheegtay maaha afkeedna maaha dareenkeedna nagama go'i kartaan madaxweynaha maanta jooga hadal uu yiri waan ku khasboonahay inaan sheego wuxuu yiri Soomaalida la yaabanahay buu yiri waxay muujinayaan in la kala go'o dadka xun ma se u dhaqmaan waxa ay muujiyaan dhaqankooda iyo ismalaha afkooda markuu qofka dhaqankiisa afkiisa isla eego waxa la yiraahdaa munaafiq baa la afka wuxuu ka yiraahday uurku markii kala duwan waa munaafiq marka annaga shacbi ahaan munaafiq banihine munaafiqiinta ma go'i kartaan leh baan leenahay waad idib darantiin